السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخياري كسود وهذا مركلي عشر ديني ما أنت waxaynu ku qaadanaa cashirkeena haddii aad ka shakida Facebook ama suspicion aad ka qaaday in laga jabsaday ama lagula isticmaalo oo kale waxaad maraysaa tallaabooyinkan insha Allah soo socda markaas waxaad sameynaysaa marka hore Facebook-gaaga iyo gelisaa Facebook-gaaga marka gasho waxaad sameynaysaa saddex xeer oo shaqo soo furto kadibna aad si account setting doorato si aad u save garayso Facebook-gaaga aad ka shakida kadib account setting marka furto waxaad ku dhufanaysaa halkan security ku qortay ka hooseysa general ka hooseysa ku dhufanaysaa kadib marka halka ku dhufato waad ka sugaysaa wuxuu ku soo saaray qaabkan waxaad ka dooranaysaa halka deactivate ku qortay oo haddii aad ka shakida Facebook-gaaga kadib password-ka ayaad bedelaysaa waxaad gelinaysaa password-kan imaka kadib password cusub ayaad gashanaysaa kadibna waxa aad save garanaysaa ilaa dhammaan meel kasta oo qayb kasta oo Facebook-gaaga in wixii comment post iyo likes shares iyo waxyaabo fara dhafaysidii laga galay oo dhan ayaad ka save garanaysaa markaas password-ka boos ayaan yar qabanayaan insha Allah kadib marka password-ka geliso continue ayaad oranaysaa password-ka kadibna continue marka aad tiraahdo uu password-ka galo sababta aad uga shakiday halkan ku weydiinaya marka waxa oranaysaa my account was hacked because of account-ka wad ka shakiday in la jabsaday aad ka shakiday kadib secure ayaa oranaysaa account kadibna get started ayaa oranaysaa kadib delete-ka ayuu ku bilaabayaa wuxuu oranayaa your username-kii birthday-gii phone number-kii address email address-kii apps-kii likes-kii waxaasoo dhan post-gii waa aragtaa taas u maranaya comment-gii intaas oo dhan iyo meelihii laga soo raacay ee laga soo galay ayuu hubinaya kadib continue ayaad oranaysaa kadibna waxaad gashanaysaa new password ayaad gashanaysaa markaa password-kana cusubna boosa kadib marka password-ka cusub gashato next ayaad oranaysaa wuxuu ku oranayaa xataa magacii hore ma iska bedelaysaa xataa magaca hore ayuu kaa bedelayaa waa haddii aad laba choice oo magac lahayd kadib choice-kaaga labaad magaca iyo dooranaysaa haddii kana waad ku tabi garanaysaa ku qoraysaa kadibna waxaa la go to new feedback Facebook caynkaas ayuu safe kuugu noqday insha Allah markaas haddii wax kasta email kasta ka soo galeen waxaan hubaa in uu sida Facebook-gaaga safe ku noqday haddii meel email-kaaga hadii la hayay hatta password-ku ka soo baxaya meel kasta uu ku jiro ka soo looqod garasme casharkeenaas ku kooban yahay ilaa channel subscribe like sartan wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh